xildhibaan Cabdiqaadir indho oo kamid ah aqalka golaha guurtida Soomaaliland oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka Home Cable ayaa xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay in guud ahaanba ay joojiso wada hadallada ay kula jirto dawladda federaalka Soomaaliya. horta wada hadalkaasi uu dhamaadaan u maleynaya anigu talaahana waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha iyo golayaashaba in la iska baxiro hadalkooda iyo wada hadalkooda waayo qofku hadduu akhlaaqiyadka ka baxo damaaci iyo wixii uu shalay bartay dawladdii hadiyada ahayd ee 60kii ay heleen dhibaato badan baa dadkan ka soo gaadho maanta heli maayo annagana waxa noo wanaagsan inaanu kalsooni inaan waxba yeeli karin qaadan waayo wadan baanu ay dhaqaaqay golayaashii sharci dejinta elected leh madaxweyne 500 soo doorteen baa maanta jooga mid 300 soo doorteen ma xagan karo ka 300 ee kun ee qof soo doorteen marka qofku hadaanu majuur ahayn oo capacity aad ku wada hadashaan baanu lahayn ama wixii hore aad ka wada hadasheen buu ka baxayo in la iska daayaa wanaagsan wada hadalkiisa xildhibaan Cabdiqaadir indho sidoo kale waxa uu ka hadlay dacwadii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u gudbisay jaamacadda Carabta iyo waliba go'aamadii jaamacadda Carabta ay ka soo saareen waxaana ugu baaqay jaamacadda Carabta inaanay faragelin arrimaha Soomaaliland jaamacadda Carabta waxa weeye dal madax banaan baanu nahay runtii laakiin inaanu ka mid noqono waan ku tala jirnay constitution-kayga ku taala waxba oran mayno iyaga waxay soo saareen waxba ka oran mayno waxaad moodaa inay rayigii qaldanaa qaateen laakiin Soomaaliland China ila gelisa haday nagu kalifto Israa'iil baanu dhulka badaha iyaga iyo heshiisyo kale u yeeranayna la gelina Mareykan baanu la gelina cid kasta oo danaha iyaga aanu ka dhex aragno waanu la gelina Ethiopia waa wadan aan walaalanahay waa wadan walba wax kala digi jiray Imaaraadku waa kadaalig hadayna deyn waayaan jaamacadda Carabtu jaamacado kale oo badan baanu geli doonaa oo Israa'iil iyo China ay ka mid yihiin marka waxa leeyahay jaamacadda Carabtu waxay iska deyso qaladaadka ay sameynayso Xasan Sulaymaan Harun Xasan Galayd telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa.